aadi aadan ugu faraxsanahay inaad fadhigayga igu soo booqateen waxaana idin lahaa soo dhawaada aadi aadna waa ugu faraxsanahay imaatinkiina runtii arinta ku saabsan dagaalka u dhaxeeya labada beelood oo walaalaha oo ka socda waqooyiga galgaduud iyo midka ka socda isaguna maxaas iyo guruceel oo iyaguna mataqaanaa ka tirsan isla galgaduud iyo hiiraan waxaan dhihi lahay guud ahaan dagaaladaas labada meelood ka socda waxaan ugu baaqaa inay shacabka halkaas ku nool iyo waxgaradka dadka ulul albaabka oo caqliga u saaxiibka ha ahaadaana maamul ha ahaadaane dhaqan ama ha ahaadaane culumo inay dagaalkaas joojiyaan aan ugu baaqa maxaa yeelay ummadda Soomaaliyeed maanta nabaday u baahan tahay dhiig daata oo dib u daata iyo dagaal sokeeye tabaray u haysa male xilligan jiilaalka ah oo mataqaanaa dayr la wajahayo waxaan leeyahay walaalayaal aqligu ha taliyo islaamnimadu ha taliso dagaalkaasna si degdeg ah loo joojiyo oo sharuud la'aan waa tahay waxaan ku weydiinayaa su'aal ku aadan maalmahan magaalada Muqdisho waxaa ka jiray shirar beel kamida beelaha Soomaaliyeed oo adigu ka tirsan tahay ay qabanayeen oo qabiil u abaabulan oo inta badan mararka qaar aad dowladda lagu soo horjeedo sidoo aragtaa shirarkaas ka horta waxaan rabaa inaan haddana oo hambaliyeeyo baarlamaanka Puntland oo maanta la dhaariyay iyagana waxaan dhihi lahaa baaq waxaan u jeedi lahaa waajibaadkooda dastuuriga inay si habsami leh ay u gutaan waxaana leeyahay hambaliyo aad iyo aadaan ugu faraxsanahay inay si diiran ay dimuqraadiyaddu ku socoto haddii aan soo laabto marka su'aashaada waxaan markhaati ka ahay in ay hoteelka Doorbin oo shir ka dhacay maalintii dhaweeday kaas oo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud uu abaabulkiisa lahaa runtii waxaa nasiib darro weyn ah marka ama maanta ay dadka Soomaaliyeed isdhihi karaan ama annagaba oo mataqaanaa goobjoog u ahaynay waqtiyadii la soo dhaafay in madaxweynihii hore oo markii hore qabiil diidahayo koox diimeedda muljadiid la yiraahdo mar walba ku dhigana inuu maanta oo xisbiyo ay dalka ka hana qaadeen nidaam dimuqraadiyana loo gudbay qof iyo codkiisna dalka inuu ka dhaco la rabo inuu maanta oo fadhi qabiil oo isugu yeero oo horboodo waxay nagu tahay mid aan kana malaysahayn ummadda Soomaaliyeed ku ah mid aan ku u qalmin maxaa yeelay halkaani magaalo madaxda Soomaaliya waa halkii dowladda Soomaaliya ay ka faafi laheeday oo caasimadii madaxii ummadda Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay marka in ay ka muuqato dowladnimo iyo in gacmaha la isqabsado marka in hadda oo isagu feenka sii raadiyo qabiil oo mataqaanaa awrkacsi qabiil iyo wax aan haba yaraatee aan hadda asiga laga maleeyay maxaa yeelay shalay wuu inkiraayay qabiilkiisa wuu inkiraayay ama mar walba wuxuu dhihi jiriyay qabiil looma baahna maanta marka inuu faraha la soo galo oo isagu haddii dowladdiisii ay mataqaanaa meeshi ay wax dhigtay dowladdanu ay mataqaanaa meel ka fiican ama jaaniskeeda in la siiyo ay tahay ama meel ka fiican inay wax gaarsiiso laga rabo ama looga fadhiyo inuu maanta marka qaab mucaaradeed oo u wajahayo oo isagu mataqaanaa uu ka shaqeeyo ololo qabiil inuu markaasi oo isagu oo noqdo hormoodkii abaabulayay qaab beeleed in siyaasad haddana lagu wajaho oo wax lagu mucaarado
inuu maanta oo isagu ay ka timaado waa nasiib darra. waxaana ugu baaqaynaa arrintaas inuu ka waantoobo oo iska dhaafo oo xisbi uu samaysta sida maalintii dhaweeday anigu dalka waa ka maqnaaye xisbi uu ku dhawaaqay xisbigiisii inuu mataqaanaa iimaansado qabiil waqtigiisi waa dhammaaday. dalkan laba shay oo khatara la rabaa inuu ka moodo oo aan nafta agdhigayna waxaa waaye argagixiso iyo koox diimeedyo mar walba mataqaanaa si guracan dadka Soomaaliyeed u ugaarsanaya iyo nidaamka qabaliga qabyaaladda. marka in maanta oo taas laga gudbay axzaabna la sameystay 35 in ka badan oo xisbiyana ay dalka ka hana qaadeen isaguna uu ka mid yahay kuwa mataqaanaa xisbiyada ku dhawaaqay oo maanta mataqaanaa in hawshaas faraha la galay uu yahay inuu inta aamini waayo xisbigii oo ku dhawaaqay iyo kooxdii damul jadiid oo markii horeba xisbi iyaduna aheeday koox diimeed qarsan oo mar walba mataqaanaa siyaasadda in daaragti ugu jirtay inuu maanta inta labadii meel iska dhigo oo u soo tafaxayto qabiil iyo qabyaalad aad iyo aad aan uga xumahay. waxaan marka ugu baaqaa inuu arrintaas iska dhaafo ka waantoobo oo iimaansado haddii siyaasadda rijo kale ka hayso inuu iimaansado nidaamka dimuqraadiga iyo qof iyo codkiis inuu arrintaas mataqaanaa oo tawakalo oo iska dhaafo inuu dowladda hadda jirta mataqaanaa uu jilaafa u dhigo oo iidii oo 2 sano u dhimantaa 2 sano idaaba iska dhamaanayse inuu sugi waayo aad iyo aadaan uga xunnahay. waxaana leenahay adkayso siyaasaddu dhibaato ma leho 4 sano ayaa u jaango-an cid kastoo markaas sumcadeeda wanaajisana way soo naqon kartaa laakiin dacar abuurtaa timir ma gurtaa Soomaalidu ku mahmaadaa wixii aad dhigatay ayaa marka Soomaalidu kugula xisaabtame hadday kuu fiicnaayeen iyo hadday kuu wanaagsanaayeen. laakiin waxaan aad u jeclaa lahaa marka oo mar labaad aan kuugu celinayaa inaad ka leexato ama aad ka waantowdo inaad qabiil shiriso adigana sharaf kuu maahan karaamana kuu maahan mana lagugu aqaanin laakiin damac aad iyo aad u dhibaato u leeyahay. marka waxaan dhihi lahaa marka arrintaas faraha kala bax. shirarka Muqdisho ka dhacay hadaan u soo laabano waxaa ka soo muuqday xubno kale oo magac leh oo beesha ka tirsan ama siyaasiyiin ah markii laga soo gudbo Xasan Sheekh Maxamuud oo carabka aad ku dhufatay dhinacyada kale maxay ka qabanayeen? runtii hadee waxa waaye abaabulkoo iska lahaa wicitaankoo iska lahaa haddii uu madaxweyne hore kuu yeero hadda waa macquul markaasi inay dad Xasan Sheekh Maxamuud maadaama ay dhaliyo wadaagaan inay marka ka soo qayb galaan maadaama aan meesha aan xodogaal u nahay oo iyagu hadda wixii ay yiraahdeen aan ognahay oo iyagu mataqaanaa ay yiraahdeen annaga siyaasad hadda inaan galna ma rabno ay yiraahdeen qaarkood dadka ugu muhiimsan ay yiraahdeen haddana maanta haddee waxa uu ugu yeeriyey ayayna fahamsanayn. hadday fahamsanaa lahaayeen ma imaalahaynaan isleeha laakiin meeshayba ka caddeeyeen oo waxay yidhaahdeen siyaasad annaga hadda inaan faraha la galna ma rabno laakiin isagu ayaa lahaa initiativada la isugu yimid. salaad warar sheegaya in adigoo Salaad Cali Jeelaa iyo Ra'iisul Wasaare Cali Maxamed Geedi meesha looga yeeray oo aad qaadacdeen maxaa ka jira wararkaas? runtii aniga hadda xisbiyan hogaamiyaa ka soo qaad xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda marna maanta annaga aragtideennu inay qabiil ka shaqayso ama ay maanta beel ay mataqaanaa dhex boodo annaga taladeenna iyo siyaasadeenna iyo aragtideenna kuma jirta. maxaa yeelay markaan xisbiga samayno reform aan form garaynaba
qabiilka in laga maarmo oo siyaasadda dad Soomaaliyeed oo guruuba ay ka shaqeeyaan oo markaasna ay dadka Soomaaliyeed ay codkooda loo baahdo oo ay gabadha Soomaaliyeed ay maanta ma taqaanaa codayso oo dadku qiimo yeeshaan halkii dadka ma taqaanaa in markii hore koox yar lagu haysa jiray ama ma taqaanaa lagu handal garay jiray in maanta dadka Soomaaliyeed ay sinaadaan qof iyo codkiis ay dhacdo qof ka muhiimsan ayna jirin targetkeenu kaas waay marka rajo aan qabiil la 30 sano la soo dhaafay ilaa 91 ayaa la waday marka taasi annaga hadda nooma conin manto aad iyo aadana arintaas uga dhiidhinay haddana marna ma aqbalayno in qabiil wax lagu abaabulo siyaasad lagu raadiyo marna ma aqbalayno waxaan dawladdan Soomaaliyeedna waxaan ka rabnaa 2 sano u dhiman inay dastuurka dhamayso inay sharciga ma taqaanaa in doorashooyinka ay dhamayso oo ay meel mariso waxaan ka rabnaa aaladihii looga baahnaa amba waxyaabaha doorashooyinka looga baahnaa inay ma taqaanaa xooga saartaan culays ku saarayna mana aqbalayna in qabiil mar kale siyaasad lagu raadiyo dalka Soomaaliyana arintaasi waa ka dhamaatay saasan shacab weynaha Soomaaliyeed ugu baaqa dambeyn marka taladaada maxay noqonaysaa taladaydu waxay tahay in arintaas laga waantoobo in qabiil maxaa yeelay fiiri 30 sano muddo dhowr iyo 20 sano oo 30 sano ku dhadhow ayaa qabiil laga shaqeeyay ma huuna dhigana waa la arkay in marka haddeer feen laga raadiyo dadka Soomaaliyeedna horaan ugu baaqay haddana waa ugu baaqaa mana aqbalayna anagu in dadka aan markaas ma taqaanaa aan anagu hadda ka soo jeednana oo aan isku deegaanka nahana ka waxaan u sheegaynaa qabiil halkoona dhigay waad ogtihiin iyaan laydinku baarjalacsanin guud ahaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay qabiil qaran laguma naqdee systemka dawliga iyo nidaamka dawliga oo institutionska ha loo maro siyaasadda Soomaaliya halkaasna cid kasta oo kursi raadsanaysa halkaas uu ka jiriyaa asoo xalaala oo aad matalaad fiican ku haysato oo noqotay ma taqaanaa Soomaali in siyaasiya oo markaas ummadda Soomaaliyeed matala si aad u naqato waa inaad dadka codkiisa aad raadsato halkii aad jinfo maanta aad ku hingoobi laheed marka aad iyo aad waxaan ugu baaqaa inay ummadda Soomaaliyeed qof iyo codkiis ay u diyaar garowdo qabiil iyo xaq jirnimana ay banaanka iska dhigto waa wixii lagu soo hingoobay aad iyo aad aan ugu baaqaa runtii mar labaadna waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad u mahadsantahay siyaasi Salaad Cali Jeelle oo nooga warramay arrimo dhowr oo ay qayb ka tahay doorashooyinka dagaalada dalka socday waliba shirar uu sheegay in aysan ummadda Soomaaliyeed dan u hayn oo Muqdisho lagu qabanayo waa mahadsantahay